u badiyaan cayrta siiyaan nimanka qadaadiicooda gacanta loo geliyo waa runtiis Soomaaliya way tuugsan jireen ma shaqaystaan mana shaqaysan jirin haddana tuugsigooda waa inay sii wada Mareykan ilaa Mareykan ma anaga naga lacag badan waa inay dadka tuugsiga anagu awoodno oo siina raxweyn oo malaayiina dhowrka qof ee soo dhoofiyay raxweynta waa inay Mareykan lacag siiyaan wala deeqo waa saxanta waa soo qoray hadda isfahanay waa soo qoraya deeqo waa khaldantahay duq soo qoraya deeqo waa saxantahay 1 deeqo waa saxantahay 1 waa khaldantahay 2 deeqo waa khaldantahay 2 haddaanu helnay meeshii saantu ka qortay waa saxantahay waan soo qoray 1 hura BBC da 1 iyo 2 waa ku jirta saacada live aanu ku jiraa si toos aan ugu dhex jiraa arrimaheena xasaasiga ah haddaanu isfahanay waa in meel walba lagu qoraa dhageysta marka waa saxantii thank you waa inaan meel walba ku qortaan dhageysta waa inaan meel walba ku qortaan Soomaali iyo English wax walba taqaanaan oo cabdi iftina muuqaalkiisa la soo dhigo ama surka soo dhigo waa runtiis waa saxan yahay raxweyn Soomaaliya way tuugsan jirtay Mareykan waa in tuugso loo badiyaa oo Mareykan la ogeysiiya meel walba ku soo qoraya biyo ka badan iyo col ka badan labadu waa ku qaataan waxa la hadlayaa aniga Soomaalida kale markii raxweyn laga tago si aan magaceena u badbaadino dadka Romanianka ee ka tuugsada Norway ayaa Soomaaliya loo ogolay inay ka tuugsan raxweynta hadalka uu sheegay cabdi iftin uu ka sheegay Fox News waa sax waana xadiis waa inaan meel walba geysaan waan isfahanay hadda waan isku taageersanahay inta waan isku fahanay waa maalintii ugu horeysay 40 sano ku socdaaye waa maalintii ugu horeysay dad Soomaali oo istaageersan oo meel wax u wada wataan arko aad baan u faraxsanahay khudbada meesha maanta ka jeediyay farmaajiyo xash axmed xitaa dil isku dhex daro intii la soo qaado la isku dhex walaaqo la isku dhex qariyo haddana qof laga soo dhigo khudbada jeediyay maanta ma jeedi karayo la isku dhex daray wallahi billahi tallah إذا جدي كريم حكمة يا عقلك يا مفكرك يا بارتي كرشة يقول جرتو حاسس شو حمود يا فرماجات يقول جر العين أفرت سنة نيجي خسارين Soomaali أدلي دي بلاني وحنا كسر لها أدوك مفكر سيده أنا أبيه هو إذا توكسنا يقولي ما أرجع Soomaali أنا توكسن جري مريكا أنا توكسي أنا سكوت داروليني وروان يابي لها وان تدوبري ما شقيا تورفر سون وان دشجع وشقينا يا هذا نل دارن لها oo tuugsi sida bilaabira raxweynta libaxya ugu dhicilaa wallahi billaah Soomaali hadda ka way libaxan keen leelka saysiin laha ila baan ku dhaartay tuugsi ma naqaan aniga waan dhintay dhabar xanuun dabadii ay dhamaatay u shaqeynay sidoo kale fta yeelaa hadaan tuugsanahay aniga subhanallah qabiil daro tuugsanahay hadda Fox News la aaday waan tuugsan jiray Soomaali dadka qabiilka waa inaan barnaa waa inaan u sheegnaa raxweyn inay Soomaali tuugsan jirtay sallallahu ala nabi warka oo toos Soomaaliye tawaa la hoogay waa la gaaday tuugsigii uu tuugsan jiray qabiilkiisa asaga wuxuu loo galiyay inay hawiye daaro tuugsadaan hawiye daaro godkiina biyaa la galay dhaxal liigu dhacday waa liiga dheer raxweyn aniga ma iriiro ma fado ma kasay Fox News aniga tuugsadee أنا فقط نيوز أكيد عندك توكسنا كعندك ورصة كعندك ورصة وحكوسور ريدا أنا وشيء قبل كي يرينو إلى الصومال كتوكسن جراري يرينو أنا بفضل أنا عليه بينما كقوية أنا كعندك ورصة مريكا بالكيمات يرينو عليه تذكي شيء كتوكسنا ولا لا جد واقعي أنا أقول أرد واقعي ويا هذا وايد وطلع أنا لا جد واقعي على الريبود أو برا كل شيء مدو كسر كري أمريكانا أنا أفرعوين عن الكساسة والله أروح ويك ساسة أروح لغة فضاسة أنا كردو أنا فقط ديس أزعل فقط ديس أنا كتوك صدا أنا سير أنا وتجي وشجع راوين كتوك صدا يا سومالي أمريكا كويه توكسيجي لو ديده بعد راوين وبهانا يقول شر قرية بقرك يقول شر قرية waxaan u sheegayaa inay noqdeen national oo la gaarsiiyay raxaweyn tuugsoodii idaacadda ugu weyn ee adduunka Fox News cusuriita in la gaarsiiyay tuugsi raxaweyn ay noqotay national treasury bay noqotay tuugsigii waa another level maanta imaamadda lama haysan karo raxaweyn tuugsigoodii waxay geeyeen Fox News bay idaacadda Fox News dadka geeyay tuugsigoodii ka tuugsan jiray Soomaaliya ee u sheegeen annaga waa naga horeeya waa naga cilmi badan yihiin dadka maanta Soomaali ugu xadaaro badan Mareykan ay jooga waa dadka ku geystay Fox News inay Soomaaliya ka tuugsan jireen balaa nagu dhacday ba waxay geeyaan bay waayeen ridaan ka tiigsadee ana ka tuugsadee
aniga aan ku dhigtee anigu ku baryaatee anigu Mareykan kooye aan qabiilka ii sheegay inaan Mareykan 68 iyo furistaan qaatee aniga gacanta hoorsadee shaashada garaac ilmaaro maxay tahay ilmaaro shaashadii garaac tobankii jarsiiya bismillahir rahmanir rahim allahumma najjina anigu ma arki karo dadka luuqadan aqoonid ee Soomaaliyeed in marna dadka Soomaaliyeed Soomaali Ingiriis lagu caay marna Soomaali lagu fariyo heergoodi dadka looga dhigo in asaga qabiil loo haysto waxa ninkan ka dambadi kara oo qof walba oo raxweyna qari kara dadka ninka uu soo raacay daarood iyo hawiye ninka daarood ba haysto ma haysto hawiye ogaada yaani la gaadin sumcadiina ha ku iibsanina qabiil qof markuu saxaya waa saxaya markuu qaldan yahay ka hor imaada daartaan iska hor imaada markii qofku qaldan yahay laakiin markii la saxaya wax waa inaa hal meel wax wada wadaan Soomaalinimo markii la soo galo waa inaa hal meel wax wada dhigtaan Soomaalinimada one place waa inaa wada aadaan ice love ninka soo qoray we love ice we are an American waa kaasoo an American hadaad ugu tugsanaysa ice bar waxay sameynayaan waa sharci darro we are American citizen we obey the law annaga kaaga horeyna kaaga aqli badan we don't support waxay ay sameynayso if you love ice habarta uge we don't care waxay sameynaysaa ice waa khalad qof US citizen insa taaban karin qof permanent resident insa taaban karin in dadka shaqooyinka u daayaan dadka ay ku sameynayaan dhibaatada waa inay ka daayaan wadankan ma ahan wadan saddexaad this is United States of America rule and regulation buu leeyahay qofkii dambi gala dambigiisa asaga consequence qof walba uu geesaasa qaadanayo qof kale oo la qaadanayo male we are an American waa u dhimanaynaa wadankan waana ka shaqaysanaynaa waana u shaqaynaynaa marka dadkiina dhacaya we love ice who do you think inaan nahanay more than hooyadaas joogtay Mareykan baa nagu joogay kuna nooleen kana shaqaysanaynay Soomaali meel degan ma badgamo annaga aniga daqiiqo kula hadlay tuurfar soo ma sheegi jiray Soomaali iyo dhibaatada ku jirtay waxyaalo sameeyay waxyaalo lagu haysto oo dhowr qof magaca u soo jiideen aanu dhowr qofna magaca ima soo jiidin xun waligiina Soomaali lama noolaadin cadaan baa la diganay diblu yaale oo yaqaano 20 sano guriga deganahay waaba ku dhashay kala aniga mar qof aniga American ma jiro Republican baa la diganahay Republican baan u codeeyaa waraa Congress-kiga waxaan dhigi jiray waa Republican sanadkayga waa Republican muwaadinta governorka waa Republican what are you talking about aniga Republican baan ahay state-kayga waa Republican waa inaad ogaataa deeqosood qofka kaliya oo badbaadin kara Soomaali waa aniga qofka badbaadin kara waa aniga waa inaad ogaataan dadkiina Minnesota khaladka lagu sameeyay ee dad yar oo khaldamay oo tuuga ah oo dhowr qof oo la xiray oo dambigooda lagu qaadayo ayaga dambiga galay qof dambigiisa qofka lama saari karo Soomaaliya dambi lahayn qofka lama saari karo hadduu hawu yahay hadduu daarud yahay iyo hadduu cid kale yahay cid walba individual baa loo qaadanayaa maahan in Soomaalidu magacaaga lagu ciyaaro oo qaadito tira okay waan dhahnay waxaan ahayn ma tiid waa ina ka dhididid wala dadka cadaanka khaladkooda qofkooda cadaanka oo booliska wax la sameeyo waa u dhiidiyaan xilaa waa laga khaldanaa kamadowna waxa dhahay madowga khaldanaa waa ina fahantaan wadankan waa ina la fahantid wixii mucaarad ku nooco wixii ku jecel la jeclow Soomaali waa ina jeclataa waa ina hal garam ahana waa hal gacan waa ina noqonaa bidixdii noqo midigtaadii noqonaya midigteedii noqo bidixdaada noqonaya waa ina Soomaali soo dhaqataa wadankan waa wadan shisheeye waa wadan gaal waa wadan lagaaga badan yahay waa wadan aan laga jeclayn wadankan sharcigiisa iyo jeclaantiisa laga rabaa ma ahan qof inaad jeclaatid waa wadanka ma ahan inaad cadaan jeclaatid ma ahan inaad madow jeclaatid ma ahan inaad carab jeclaatid ma ahan inaad qof u niigisid waa you have to inaad wadankan rulkiisa iyo regulatiinkiisa baratid waa inaad follow garaysid waa inaad cashuur bixisid waa inaad u shaqaysid kana shaqaysid you fucking stupid meeshaan iska soo galaysaa wixii ogeyn bay ku hadlaysaa I love ice fuck ice ana ku dhahaya ice in nobody fucking agency waaye
maahan booliis maahan military maahan army maahan waa qof la soo shaqaaleysiiyey caloosha u shaqaysta Soomaali la yiraahdaa waa qof caloosha u shaqaysta you need to understand that waa la cayriyaa bari marka shaqada dhamaato they get fire employee waa maahan ciidan booliis baa loogu cayrinaya ka tafaqari aldahaya you can say booliiska ana cuna ma dhigi kartid but you can say ice ana wasa waa ina waddanka rulkiisa barataan we are going on hadaa khalas soo noqonaysa yes you go back aniga if I want to go back I will go back on my own will but I'm not ready to go back Somalia. Somalia is not ready for us. It's not ready for me. Somalia is not stable. The reason why I left in Somalia is still there. Somalia is still qabiilka ka jira. Is still dilkiga ka jira. Is still qabyaaladda ka jirta. Is still dawladda ka jirta. Is still no police, no light, no caafimaad, no clean water, no nothing in Somalia. The reason why United States bring me here is still is over there happening. How are you going to take me? Somalia is the only one waddan oo naloo ogolaya qofkaan sharci lahayn Soomaaliya ee Mareykanka jooga inuu ku joogo BTS wadamada kale ma waa Soomaali kaliya meel loo celin karo waxa laga wadaa BTS ka maaha qofka dadka cadaanka iyo dadka Afrikaanka Amerikaanka ma fahansana what BTS means. BTS means someone oo darbi ka soo booday dhageysta oo nigu soo celin repeat myself someone oo darbi ka soo booday Donald Trump kan waalan waxa marka laga tago someone oo darbi ka soo booday ayaa waxa loo ogol yahay BTS inuu ku joogo micnaheedu tahay inaan la celin karin TPS miya temporary protection status okay waa temporary protection okay TPS thank you TPS waa temporary protection status waxa loogu tagay qofkan sharciyaysan ee darbi ka soo booday ee sharci darro ku soo galay inaan la celin karin hadda sharci darro ku soo galo yaa sharci ha loo diido yaa la siinin laakiinse wuxuu ku joogayaa TPS you know why because dhibaatadu ka soo cararay iyo istilkii iyo qixi iyo argixisada Soomaaliya wali waa ka jirta waxaad u baahan tihiin in aad sharciga barataan for you to understand you need to read the constitution wuxuu ka reebay constitution waa inaad ka tagtid wuxuu ku siinaa waa inaad ku dhaqantid thank you ina maanta macallinkii fiicnaan jiray aan ahaan jiray aan ahay inuu wali wax baranin aad baan ugu faraxsanahay waxbaan ni bara mana barataan saaka tugsi halkaas aan uga tagaynaa tugsigii halkaas ayaan uga tagaynaa asoo suud xirtay muu qof suud xirtay qof tugtay uu ogyahay idinkaan weydiinaya asoo suud xiran oo labisan calanku haysto iyo tayga fiiriya ma arkin hadda ugu horeysa tayga fiiriya calankiisa okay laakiin tayga fiiriya who does that tayga fiiriya what tayga fiiriya hello bay maqashaa ilaa rabbi dhawaqiga xagee gaarsiiya do you see the tie that's the day he was getting the citizenship ماشي citizenship lagu qaadanayo ceremony oo mar ayuu taagay soo xirtay God bless America Star Bangle wara ay soo qor waa qaadayaayo the Star Spangled Bangle diso masaara ma qaldan did I say right we love America but now we're not showing off on wearing tie to be an American. We're not wearing a tie to be an American. We love America. This is our second country. We love America, but we're not showing off to show that we love America to wear a tie. What a rahawain. What a rahawain. What a rahawain. What a rahawain. Oh my God. What a rahanway. What tie oh my gosh. How come you wear a tie to show that you are American? The day he was getting the citizenship way maanta soo qaadanayay shahaadada dhalashada Mareykan oo wadankan la siinayay waa u jeedaa calanka agyaal u jeedano iyo meesha taagan yahay iyo tayga iyo maartay baalkii rishalka ugu dhiga xabadka iyo calanka Mareykan maanta soo la isku dhiibay yes laakiin tayna soo xirtid waraa heesta ii soo qoro waa qaadaya heesta ii soo qoro qof ii boobsi
hal sadar darta ii soo qora heesta caalamka Mareykan ii soo qora waa qaadayaa caalam baa xirana tay xiranahay waa soo qabatay ma waxba iga baxsanay anigu waxa iga baxsanay anigu siriiska waa soo qabtay waa maanta dhalashada qaad oh can you see what is up badiya qaade God bless America. You know, I can speak English. I learned English. I told my family, Rahawain, we used to beg in Somalia, and now we live in America. I'm not going to take Section 8 and food stamp. I'm not Rahawain no more. Call me American. That's what the book say. Book soo qoray saas uu leeyahay. That our start Spanglish is there. Is that? Oh no, way low. High school ku qaadi jiray. I can't remember no more. That's it. Waa out of the window. Meelaha laga raadiyo waa iloobay. Waa ina soo barto. Tomorrow waa ina soo barto. hadda saaxiibkeen maantu qaadanayay dalashada Mareykan ceremony-ga uu aaday meesha lagu dhaaranayay inuu noqonayo qof Ameerika u dhashay oo ninkan waa nin wanaagsan waa qofkii ugu horeeyay wala screenshot ka qaata telefoonka dhexdiisa taabanaysaan marka telefoonka dhexdiisa taabataan kor waxa ku soo baxaysa meel ku qorantaa clear ka taabanaysa qoraalada dhaba ka baxaya screenshot ka qaado soo clear ku soo baxaya meel walba soo dhigtay albumkiina kashada xasuusta gurigiina ku dhigsada Mareykan ninkaas uu jecel yahay ha arwaado aan raxweyn ma gaar raxweyn Fox News bay tagan waxay yiraahdeen Soomaaliya waa ka tuugsan jiray Mareykanna tuugsi waa u nimaanay waa sidoo yiraahdo Cabdi Iftiin aanu ma dhihin harin sayra Cabdi Iftiin sayra okay waan soo qabanay wax yiraahdeen suga waxaan fiirinayaa in masuur kale ii yaalo BBC-do masuur ku soo dalkashaday yaalaan nin weyn ninkasi weyn ninkana u jeedaan Axmed Ismaaciil Samatar oo cuqdadii uga tagay Muqdisho kadib markuu Hargeysa aaday asagoo ku tilmaamay Muqdisho in ciyaal yar oo qaaqaawanayo meel yar oo qashin badan ay tahay ayaa cuqdadu qabay wuxuu la soo haajiray dhinacaas iyo Mareykan asagoo uu sheegay New York Times dadka Soomaaliyeed qayb ka mid ah inay tuugsadaan oo uga horeeyay Cabdi Iftiin ayaa wuxuu ku soo xariiqay idaacadda weyn ee New York Times isbuucii la soo dhaafay Axmed Ismaaciil Samatar oo lagu yaqaan cuqdad kadib markii loo dooran waayay dawladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladdan haatan xilka haysay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay u diideen inay wasiir ka dhigaan kadib markuu carooday wuxuu u tagay Muuse Biixina wuxuu dhahay dadkaaga waa inaad la soo shirtid kuwaasna ha ku doortaan haddii ku awoodaan inay ka dhigaan madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan Soomaaliland kadib cuqdadu uu qabay magaalada Muqdisho wuxuu la yimaaday inuu ku taageero dadka cusuriyiinta ee Mareykan inay yihiin dadka Soomaaliyeed dad xun kaas oo warkiisa ku soo gudbiyay New York Times Axmed Ismaaciil Samatar wuxuu sheegay Soomaaliya dadka dhaca oo tuuga ah laba qayb ayuu dhahay qaybna ay fiican tahay qaybna ay xun tahay ana maskaxda ka shaqeysay dhageysta adiga fasirina ma ogtay adiga fasirina wallahi qoraal dheer New York Times MSNBC CNN Soomaaliya taageersanaayeen oo Fox News la dagaalamayeen ninkan baa soo galay New York Times oo ninkan waxa waay ninkan ma aha professor ninkan wuxuu yahay dean dadka Soomaaliyeed dean ma yaqaanaan deanka waxa waaye professorkiisa professornimo ka sareeya ninkan aqoontiisa waa dean Mareykan haddii aad raadisaan jaamacadda Wisconsin uu dhigi jiray marka ninkan waa nin aad wax u bartay anigu aad baa u taageersanaan jiray markuu Soomaaliya nacay baan nacay asaga markuu tufay Soomaaliya tufay ayaa hore inta qayladan iyo balaadan soo dhicin oo warka qorin gabadha Soomaaliyeed dheeysay Wisconsin ay bay deganaan jiray oo hooyada 16 jir la seexday yaa xasuusta gabadha cadaankeed yaa xasuusta naagta cadaanka dhashay ee dheeysay nin Soomaaliya dhalay ma xasuustaan bishii hore ma xasuustaan dhamaadkeedii
ha waa anigii masoorkaan soo qaatay oo dhahay ninkan baa naagta dhalay anigu tumbaraac bay iga ahayd inuu naagta dhalay in kale ma ogeyn waxaan ka waday ninkan baa gaal raaca Soomaali ma fahmayso ninkan baa gaal raaca dadkii ma fahansaneen laakiin waxaan fahantaa in anigu maskaxdayda aad u shaqayso inuu gaal raac yahay haddana wakaas iskeenay 3 bari 4 bari koor New York Times ku soo qorayso Soomaalida caynaayo maxaa ku keenay asoo professor ah aan jeclaan jiray inuu diin ah oo Soomaali ah oo xurmo naga mudan inaan hor carro dhaho ninkan gaaladu jecel yahay oo dhan asaan naagta caddaanka la socdo gabadha ka dhalay